السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن daawada meel walbo aad naga daawanayso ku soo dhaw sheekadii saxardiid qaybteedii 14aad. qaybta 13aad ee sheekadii saxardiid waxay noo joogtay soo guli ayaa ugu horeeyay nin maradii indhaha iska fura mar alla markuu iska furay ayuu farxad la qayliyay. intaas waxay noo joogtay qaybtii 13aad. alla waxbaan arkayaa kani waa dhagaxii xeeliga waa taana wadadii guriga loo maraayay ayaalane isla markaasoo maradii dhagaha ugu xirneed iska furay wuxuuna yiri maxaa tiri walaal malaha waaman ku maqlayaaye alla waa alxamdulillaah dhagahaygii daboolka ayaa ka qaadmay intaanu ayaan laba qayladii joojin waaba samaale intoo kharbadii iyo kiishkii iska dhigay xaggoodii u soo dhutiyey waxaana u malaynaa inaa socodka karaayo walle dhabarkii laga fur lugahaygii saddexdoodii markuu mid walba ka soo noqday yaabkii iyo farxaddii ayaa saxardiid ilaahay baa ku mahadinaynaa caafimaadkiinii oo soo noqday wax la hubo ayayna ahayd in ilaahay aqbalayo duqdii hooyadiina ee ducadeedii afartoodii baa dabadeed xaggii guriga ayay u soo kaceen markay boortii hoos yimaadeen ayay mar keliya u wada yeereen hooyadood intaanuu dhawaaqoodii go'in iriddii baa furantay oo habartii baa soo joogsatay ilaa iyo midba midka kale ugu badiyey xaggeedii. habartii ayaa farxad awgeed waalan gaartay nimankiina farxadtaa ka sii weyn ayay ku farxeen aragtida hooyadood oo ayadoo nabad qabtay ay ku soo noqdeen. saxardiidna waxay ugu mahadnaqeen geesinimadiisii iyo daacadnimadiisii isna farxad iyo guul ayay u noqotay. isku soo noqodkan ka dambeeyey dhibaatadii iyo kala lunkii hase yeeshee farxaddii iyo damaashaadkii may madax marin saxardiid ee markaas ayuu xasuustay abtigii timir oo ka soo tegay muddo dhowr sannood ka hor intaa iyo goortiina war iyo wacaal aanu u hayn waxaana ku dhashay qalbigiisa xiiso iyo hilow. dabadeed saxardiid baa ku yiri mar hadday saadaasheenii rumowday niyadiina inoo fariisatay oo ay caafimaad iyo nabadgelyo iskugu wada nimid waxaan idi weydiisanayaa in aad iga ogolaataan in aan u tago abtigey oo u tagidiisa iyo araggiisa aad u jeclahay una xiiso qabo. saddexdii walaalaha iyo hooyadood ayaa ku soo wada booday oo isku duubay saxardiid markuu sidaa yidhi kuna dhaarteen wax weliba naga xaaraan in aanad weligaa naga tegayn guushayada iyo baraaraheennaba adaa u sabab ah. wuxuu ugu jawaabay marnaba nafteyda uma siinayso inaan idinka waxaase jirta inaan abtigey lahayn inan kale markaa waxaa laga yaabaa inuu hadda waxuun iiga baahan yahay. waxay ku yidhaahdeen hadday sidaasi jirto waaba lagama maarmaan in aad tagto waxaadse noogu ballan qaadaa in aad nagu soo noqon doonto. isna wuxuu ku yidhi waa hubaal in aan idiin imaanayo mar allaale markuu wakhtiga ii ogolaado. markaasay ayakan u raaciyeen kolley haddaanay taa ka fursanayn xasuusnaa waa inaa imaatankaaga ku soo beegtaa habeenka xagaaga kala bara sanad walba. saxardiid baa intoo kiishkii dahabka ah dhabarka u ritay saaxiibadiina sii macsalaameeyey dabadeedna socdaal dheer waddada cagta soo saaray ilaa gurigii abtigii markuu hor yimid ee uu iriddii garaacay ayaa waxaa ka furtay haweenaydii abtigiis mar alla markay aragtay ayay yaab iyo amakaag afka la kala qaaday oo waxay ku hadasha garan weyday. markaas intay aad ugu fiirsatay wejigiisa iyada oo rumaysan la u dhawaaqday ninkeedii waxayna tiri timirow alla waa saxardiid. timir baa markiiba soo booday haddooba indhaha ka qaaday saxardiid waabuu isku duubay isaga oo gacalo iyo jacayl oo aan la koobi karayn ku soo dhaweynaya kuna leh xaggee ku maqnayd abti maqnaashahaadu wuu nugu dheeraaday. gabadhii abtigii dhala ayaa iyana ku soo oroday iyada oo ay qoorteedii ka lulato kuushii saxardiid ululaxyada badda ugu soo sameeyey. saxardiid baase markuu arkay qosle oo yidhi oo kuushaani welima haysataa markaasay inta yar ilkaha caddaysay ugu jawaabtay waxaan hubo ayay ahayd inaad kollay soo noqonayso. intaas waxay noogu dhammaaday qaybtii 14aad ee sheekadii saxardiid.